qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay gabar ka shakisay ninkeeda inuu gabar kale la socdo. haddaba gabadhaas sidee ku hubsan doontaay ninkeeda inuu gabar kale la socdo? hadday hubsatane maxay samayn doontaa? فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا ليال ميل والبآد جوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة والبئية قصة عصب. وقصة دينا ما أنت قصة حقيقة waxaa ka sheekeynaya ninkii ku dhacday mar weyn dhacday mar hore xataa ma ahan. waxaa jiri nin ilaahay xoolo siiyey, wuxuu doontay gabar wanaagsan, gabar diini akhlaaq leh. gabadhii waa la soo siiyey, wuu guursaday, 2 sano isqabeen. 2 sano markii isqabeen kadib uuray qaaday gabadhii, cunugii dhashay. waxay ku tiri ninkeeda, waxaan rabaa aniga inaan shaqadeeda ku noqdo, waxbarasho macallin ahay, iskuulka raba inaan macallin ka noqdo. waayuu dhahay ninka. uur kale haddana qaaday, cunug kale dhashay. uur saddexaadee qaaday, cunug kale dhashay. 3 ilmo markii dhashay. subaxiina asigana wuxuu u ka lahaa shaqada, iyada iyo caruurteedana waxay aadayeen iskuulka, laan iskuulkii macallin ka tahay. maalin maalmaha ka mid ninkii wuxuu ku yidhi naagtiisa, waxaa inuu keenaa gabar shaqaale ah, booyoysasa u naqaano. gabadhii waxay ku tiri, marka shaqaalaha keenaysid waa inuu noqdo shaqaale ajnabi ah, wadankan gabdhaha jooga ma rabi, gabdha bannaan inaa keentid waaye. waayuu ku yidhi, gabar wuxuu u keenay dowladaha aasiyaanka mid ka mid ah ayuu u keenay. gabadhii marka waxay bilowday inay ka shaqayso guriga, ay ka shaqayso xoogoose u shaqaynaysay 1 sano 2 sano. maamadii ama gabadhii guriga lahayd waxay dareentay gabadhan shaqaalaha xoogo inay hadalka maqlaynin, haddii la hadalnay kusoo celinayso. waxay tiri si wax u jiraan, gabadhan shaqaalo waayo, ninkii wax siiyo, maxay hadalka u bilowday inay ugu soo celiso? gabadhii la qabay marka waa shakis, gabadhan waa ka shakis. waxay tiri gabadhan shaqaalaha inay hadalka ugu soo celiso arrinaa jirto. ninkeeda u sheegtay, waxay tiri gabadhan shaqaalaha hadal ay ugu soo celiso, saama samaysa waa in la raacdeeyo. ninkii wuxuu bilaabay marka gabadhii shaqaalaha inuu difaac yiraahdo kale, maya saas ma ahan, adigaa xanaagsan, adigaa kuleel, gabadha ku qaylinin. marka waxay tiri waayahay. gabadhii marka shakii waa sii weynaaday, marka shakii ka qaaday, shakiga waa sii weynaaday. ayib maalin maalmaha ka mid ah waxay ku tiri walaalkeeda, waxaan rabaa ninkayga markuu anigii caruurta iskuulka i geeyo guriga inuu kusoo noqday in kale inaa ii fiiri sidaan rabaa. walaalkeed wuxuu ku yidhi, haye cunugii ninkii naagtiisii caruurta iskuulkuu geeyey, shaqadiisu aadi, adiga around 10 subaxnimo markay taho kalo meeshuu kusoo noqday, guriguu kusoo noqday. 2 saac mala uu la joogay 3 saac. 1 duhurka markii la gaarayna wuu baxay. wiilkii walaashiisu wuxuu yiri, ninka guriga 10 AM markeedu kusoo noqday, 1 o'clock wuu ka baxay asoo geesaha fiirinaya. gabadhii marka arrintii la weynaatay, waxay samaysay mataqaana, meelay wax ka bilowdo mataqaana, hooyadeedii la tashatay. hooyadeeda waxay ku tiri, hooyo adigaa gardaran, adigoo gabar intaan la eg maxaa shaqaale ku falaysay? ninkaaga haddaa rabtid inaan lagaaga hoos marin, dharkiisa iyo cuntadiisa inaa adiga samaysadeed, wax kasta hala hagaajiyo, guriga hala dhaqo, laakiin 2 arrin haddaa ku dadaashid ninkaaga adaa gacanta ku haysa lahayd. waana kuu sheegay marka hore, ninkaaga cuntadiisa inaa adiga karisid, dharkiisana inaa adigu laalaabtid oo siisid. 2daas haddaa samaysid ninkaaga adiga askale. laakiin 2daas haddii lagaaga hoos maro, lagaa qaato, qofka 2daas samaynaya unbaa ninkana kaa qaadanaya. cuntada macaan wuu dhacjibinaa, cuntada ka hornay leedahay, marba si tartiib u soo gelaysaa. gabadhii waxay hooyadeed ku tiri, hadda maxaan sameeyay? waayo qaladkii waa dhacay. hooyadii waxay ku tiri gabadheeda, ninkaaga wax safar ma u soo dhow yahay idinka ama kulligiina ama keligiisa? gabadhi waxay ku tiri hooyadeed, 3 isbuuc ka bacdi meel loo dirayo, meel shaqo aadaya, 2 isbuucna xag kusoo maqnaana. waxay tiri arrin fiican waay, markuu safro iyo imo ilaa safarka uu ka baxaayane wanaag maahayna xumaan yuu kaa arkin, inaa shakisayn yuu kaa dareemin. gabadhi waxay tiri haye. hooyadeed hadalkeedii maqashay, ninkiyaa baxay, hooyadeedii u timid. hooyadii waxay ku tiri, gabadhan baasaboorkeeda qaad, migrationka u gey, iska tarxiil. raacday wadanka dhanba ka raacday. gabadha hooyadii hadalkeedii maqashay, waa qabatay, way tarxiishay. haddana hooyadeedii kusoo noqotay, maxaan sameeyaa? gabadhii waa tarxiilay. hooyadii gabadheeda waxay kusoo tiri, marka jaaniskan ka faa'iidaysa, hadalkaygana si fiican u maqal. ninkaaga guriga markuu kusoo noqdo asigoo nadiif ah, cuntadiioo diyaar ah, adigoo diyaar ah, ilmihiisoo diyaarsan ha usoo noqdo. maalmaha is aroosaysiinsa ahaan jirtay oo kale ahaaw. kadib ninkaaga hadduu ku weydiiyo shaqaalaha waxaa ku tirahaa, gabadhii way xanuunsatay, dhakhtaraan geeyey,
dhakhtar markaan geeyey kadibna aidisaa lagu sheegay wadankeeday aaday. gabadhii ninkeeda markuu yimid sidii hooyadeeda u sheegtay samaysay, gurigoo nadiife. shaqaalaha markuu weydiiyeyna sidii hooyadeeda u sheegtay ayay ku tiri ninkii wuu naxay, walwal iyo murugaa ka muuqatay. wuxuu bilaabay salaad uu ka taguu bilaabay, ilaahu u dhowaaday, sadaqadiiuu bilaabay, naagtiisa iyo caruurtiisa inuu jecel yahuu bilaabay, uu tusay. mar kasto qiyaami leylu usoo kacaa, uu tukanaa. xataa nin cayiluna ahoogoo wuu xaatoobay. markuu ilmihiisa iskuulka yimaadaan wuu la fariisanaa, haguu siinaa, madaxuu ka dhunkanaa, wuu la sheekaysanaa. xaaskiisa wuu la sheekaysanaa. xaaska waxay dareentay marka ninkeeda inuu toobad keenay, iyadana way toobad keentay. hooyadeeda u sheegtay, waxay tiri mar kale ma sameynay. ninkeedana waxay dareentay marka inuu toobad keenay. ninkeeda u timid waxay ku tiri xaaji oo khayr allah ku siiyo, arrinaan rabaa inaan kuu sheego, laakiin waxaan rabaa inay dhegaysatay ilaa aan hadalkayga dhammeeyo. ninka wuxuu yidhi waayahay. waxay ku tiri rasuul sal slam xadiid waxaa ka sugnaaday qofka hadduu zinaysanayo iimaankiisa in la qaadayo, markuu zinada ka baxa ou ka tagan uu toobad keena iimaanka loo soo celinayo. hadduu qalad kaa dhaca inaad toobad keentidaan rabaa. taas number 1. number 2, gabadhan iyo qisadeeda intaan kuu sheegay waxba kama jiraan. aniga waa shakiyey tiri, ma rabin inaan kuu sheego shakigayga. waxaan sameeyey marka gabadha anigaa tarxiilay, mana jiranin, aidisna laguma sheegin. waxaan rabaa gabadhaas maadaama ay naga tagtay, aniga sidoo horan kusoo noqona, adigana sidoo hore kusoo noqo, ilaahay aan wada toobadkeena kulligeena. ninkii wuu farxay, wuu xanaagay, wuu quslay, afkuu kuusay. wuxuu sameeyey garan waaye. wuxuu ku yidhi marka waxaa samaysay shaytaan ma sameeyo yidhi, laakiin waa ku mahadsan tahay, ilaaha iisoo celis wadadiisa, adigana waa mahadsan tahay. maanta wixii ka dambeeyay sidii hore kusoo noqo, anna waxaa ballankaa qaadaa sidii hore inaan kusoo noqdo. sidii ay labadooda ku noqdeen nolol wanaagsan, nin wanaagsan, gabar wanaagsan iyo caruur baari. saa ujeedaan qisadan waa qiso aada u faa'iido badan. qaar ka mid ah idin sheega, inta kalena idinka idin deynaya soo qora. faa'iidada koobaad waa faa'iidadii hooyada gabadheeda ay ku tiri, ninkaaga yaa lagu hoosmarin. ninkaaga cuntadiisa iyo qolkiisa jiifka iyo dharkiisa ka adka waa wax fudud waay. intaas waa ka adkaan kartaa. ninkaaga cuntadaada cunto ahayn yuu cunin, dharkiisa qofaan adiga ahayn yuu dhaqinuu feereynin. markuu baxaaya dharka u keen kamaa xiranay mise kamaa xiranay. labadaas arrin haddaa ninkaaga ka qabsatid, meel kale ma fiirinayo, mana ku fikiraayo. laakiin haddii ninkaaga lagaaga hoos maro dharkiisa iyo cuntadiisa, ninkaas gacan kuma haysid. haddaba waa kuu sheega. gabdhaha shaqaalaha raadsanayo haddaba waa kuu sheegoya. hadhow ha shallaynin, hadhihin shaqaala gabar booyaasiyaa ninkii iga qaadatay, hadhihin waa lagaa qaadanaa. lianna gabadha booyaasida waa sidaadoo kalo. faqiirnimadeeda ceeb maa, gabarnimada kama qaadayso. faqiirnimada booyaasinimada gabarnimo kama qaadayso, naagnimada kama qaadayso. gabar booyaasiyan iga qaadinta hadhihi lahayd. gabadha booyaasida kuu shaqaynayso meel u xadid, alaabta iyo jikada iyo dharka ha kuu dhaqdo. xaydka ninkaaga iyo cuntadiisa adiga ka adkaa. ma cuntaadan karsan karin intaad 24/7 telefoonka dhegta kugu jiro ama sariirta aad jiifaysid? cuntadaada ka adkow. cuntaduu ninkaaga iyo ilmahaaga cunayiin adiga samayso. naag booyeysi ha u dhiibin cuntada ninkaaga, haddii kale biri waxay ku leedahay cuntada ka waran, asina wuxuu leeyahay way macaan tahay. faa'iidada labaad, xikmada ilaahay uu ugu talagalay gabdhaha inay guryahooda joogaan ee hooshooda qabtaan waay. subxaan allah, alaa yaclamu man khalaq wahuwa alatiifu alkhabiir. markuu dhahayo ninka bannaan ka soo shaqay, gabadha gurigaaga joogo, ninkaa gurigaaga hooshiisa ka adkaa, xikmaa ku jirtay. laakiin ninkii hadduu baxo, naagtiina ay baxdo, ninka daalana guriga imaanayo, naagtiyaa daalana guriga imaanayo, guriga hooshiisiyaa u maqan, marka booyasiyaa u maqan ama shaqaalaa u maqan. sidaa darteed xikmada ilaaha ku jirto. ceeb ma ahan gabadha haddii dad wax soo barto, laakiin saacadaheeda ha soo yaraysato. ninkeeda intuu maqan yahay ha baxdo, gurigeedana ha ka adkaato. waxaa ceeb ah ninkaaga iyo shaqada gurigaaga inaad ka hormarisid dad bannaan, ama hoolo bannaan aa kasoo hormarisid, ama shaqa lacag lagu soo qaadanaya aa ka hormarisid. ceeb waaye. arrintaasna gurigaaga ayay burburinaysaa. faa'iidada saddexaad, ninkaaga waxa keliya waxaaga qaadan kartid waxaa waaye wanaag iyo jiljileec. haddaa isku taagtaagtid waxaa laga yaabaa inaadan waxaa rabtid helin. ugu dambeyntiina waxaa laga yaabaa gurigaaga inuu burburo.
marka gabadha walaashii muslimadda waxaan ku leeyahay ninka haddaa rabtina waxaaga qaadatid laba arina wax laga qaataay hadal jilcan iyo jeceyl inaad tustid labadaas haddaa tustid boqolkiiba 99.99 nimanka intaasaa kaafiso 0.0001 waxaa laga yaabaa inuu jiro oo hadalkaas wax laga qaadin gabadha muslimadda walaashii waxaan rabaa inaan dhaho awoodaada waxay ku jirtaa daciifnimadaada nabiga sidoo noo sheegay ma ra'aytu أذهب باللب الرجل الحاذق منكن رسولك وحور ما أركن قف ننك أدونك أوغو أدأذك نمك كلا أي كبقان روحي سلا بحكرة يعني حتى روحك قاعدة كرما روحي سلا بحكرة أو إذيك أهين ما أركن وحال شيء ويلوار على شيء وحالي نمن سدح لنا أتمدو رادينيسي مدول بحو كبقى إنو كعيو أو واكاسي كعسدي تري هو ذبقين وحيسوها إنو كعو waxay naagtiisa inta lugtay ku dhato warkacni mana ku taaganay tiri marka naagta ninka way ka adag tahay laakiin naag walba ma aha waa naagta aqliga leh waaye faa'iidada afraad hadaa wax ka shakisid ha sameeynin ilaa aad hubsatid hadaa hubsatidna tilaabaha qaadin adigoona dad la tashanin gabadhan aqligeeda fiiri way shakisay way hubsatay way la tashatay gabadha qaarkood waxaa laga yaabaa markay shakisaba maxaa sameynaysaa telefoonka ay tus gabadha maxay tahay taas wax lagu ma sameeyo waxaa laga yaabaa temporary si muaqad ahaan problemku inuu joojiyo laakiin taas problem lagu ma joojiyo hubso markaa hubsatid kadibna la tasho dadka khibrada leh la tasho hooyada la tasho dad weyn la tasho culimo la tasho arintaas ay haysatay maxaa sameeyaa laakiin hadda seefta la boodid seefta ama ninkii ku dhacaysa ama adigii ku dhacaysa ama labadiina idin ku dhacaysa marka dhibun baa ku imaanaya ha degdegin marka wax aragtid wax shakina ha ku sameeynin gurigaaga ha ku burburinin faa'iidada shanaad hooyooyinkii ku socda hooyada waxaa loo baahan yahay gabadheeda iyo ninkeeda hadday isqabtaan ama gabadheeda ay ninkeeda ka soo dacwooto gabadhaada ha la jirin niyad ahaan waa oo la jirtaa laakiin gabadhaada ha garab istaagino ha tusin inay iyada saxsan tahay xataa haddaa ictiqaadsantay inay saxsan tahay gabadhaada inay garoob kuu soo noqoto guriga kuu soo fadhiisato ama 5 ilmo ay kuu soo jiido waxaa kaaga fiican gurigeeda inaa u hagaajisid khibra leedahay waa ka weynta hooyadeeda khibra leedahay adduunyo horteeda soo aragtay weyga ugu fiican ama wadada ugu fiican ugu sheeg waxaana u ilaalisaa gurigeeda inay ilaashato waxaa ku waanisaa gurigeeda inay haysato waxaa ku waanisaa guri burburka dhibaatada uu leeyahay garoobnimada ama single mother-nimada oo ilmaha lagu korinayo dhibaataday leedahay hooyada laga rabaa arintaas inay samayso faa'iidada lixaad iyo tan toddobaad sideedaad sagaalaad tobanaad adiga laga rabaa inaan soo qor adiga laga rabaa khayr allah ku siiyo jazaakumullahu khayran barakallahu fiikum waa inuu jumcada soo socoto iyo qiso cusub ilaa jumcada soo socota la gaaray maxaa laga rabaa dhageyso ka faa'iideyso walaalaha kalene u sii gudbi barakallahu fiikum assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله